waa hagaag saaxiibayaal soo dhawaada mar kale haddii aynu kusii soconno muuqaalkeenii shanaad ee qeybta dhexe technical of analysiska wuxuu noqonayaa maanta casharkeena shanaad trendy and trend lens. Trendy waa jihada suuqa iyo trend lens oo ah calaamadan halkan kaga muuqato oo maalinka hore aan trade view markaa weysan idin sheegay ayaa trend lens la yiraahdaa, iyo trendy oo ah jihada guud ee suuqa. haddii aynu qeexno labadan eray macnahooda iyo sayiin, sida aynu wada ognahay suuqa sarifka lacagaha qalaad waa meel ay ku hardamayaan laba kooxood oo kala ah kuwa suuqa soo iibsanayo ee loo yaqaano buyers iyo kuwa suuqa iska iibinayo ee loo yaqaano sellers. labadaas kooxood mooyaane koox saddexaad ma jirto, waa kuwa suuqa soo iibsanaya iyo kuwa iska iibinayo. mar walba oo suuqa kor uu ujeedo waxaa loo yaqaanaa uptrend, waana marka ay suuqa ku awood weyn yihiin kuwa iska iibinaya ee loo yaqaano buyerska. sidoo kale mar walba oo suuqa uu hoos ujeedo waxaa loo yaqaanaa downtrend, waana marka ay suuqa ku awood weyn yihiin kuwa suuqa iska iibinaya ee loo yaqaano sellerska. yacni kuwana waa iibsadaan suuqa, kuwana waa iska iibiyaan, waa labadaas koox. kuwii markaas awood badan tiro badan ayaan suuqa ku awood weyn. jihada suuqa waxay u samaysmataa qaab noocaana, meel low ah ayay ka kacdaa markuu suuqa uu uptrend yahay. high ayuu tagaa oo korka u koreeya, uu soo noqdaa xoogaa yaro nasiina, higher low wax la yirahdo ayuu sameeyaa oo loo soo gaabiyo HL. marar badan waa arkeysaa shaashadeena soo ka muuqdo. inaa fahanteed ayaan filayaa. handalo kor ayuu sii tagaa oo wuxuu samaystaa higher high oo laga soo gaabiyo HH. sidoo kale handalo nasiina yar ayuu soo qaataa oo higher low ayuu sameeyaa wax la yirahdo oo isla same intii oo kale ayaa ayadana loo soo gaabiyaa HL. sidoo kale kor ayuu tagaa higher high, wixii ka dambeeya marka higher high higher low higher low, saas nidaam ah ayuu ku dhismaa. sidoo kale suuqa markuu isaguna sell yahay oo kan bil cagsigiisa uu yahay, isagana markuu hoos u socdo wuxuu ka imaadaa meel kore ayuu ka imaadaa oo highgaas kore, kadibna low oo hooseeya ayuu tagaa, kadibna lower high ayuu tagaa. xoogaa yaro nasiinadan uu qaadanayo waxaa la yirahdaa ayadana lower high oo LH ayadana loo soo gaabiyo. sidoo kale wuxuu tagaa andale hoostan ayuu kasii hoos maraa oo micnaheedu tahay lower low, inuu hoostan hoos ka hooseysa ay tahay. andale kor ayuu wax yar nasiino u laabtaa, kadibna wuxuu samaystaa waxa la yirahdaa lower high, yacni hoostii u dambeysay korkeedii af Soomaalihaan ayuu noqonaya ayuu samaystaa. andale kadibna hoos ayuu samaystaa lower lowgaadi mid kasii hooseysa ayuu samaystaa. handale kadib lower high ayuu samaystaa. handale kadib wuxuu sii samaystaa lower low. wuxuu ku dhismaa nidaam sidaas ah. yacni suuqa uptrendkaas sidaan ayuu ku dhismaa, kan downtrendkaana sidaan ayuu ku dhismaa. marka inaad kala fahanteed iyo ereyada kala xasuusinaad isku day, because marar badan ayaa hadhow markaa qeybteena advance ka tagno oo suuqa aan ku taxliilinayno oo practice aan sameynayno ayaan isticmaali doonaa. waana meesha koowaad ee hadhow shaqadeenu ka bilaaban doonto markii aad istiraatiijiyadeena oo si fiican u sharaxayno oo u fahmi doontid insha Allah. waxa koowaad shaqada ka bilaabanayso waa inaad sidoo ku dhismo suuqa uptrendka iyo suuqa downtrendka inaad fahmi karto. marka haddii aad trendiga jihada suuqa sidaas oo u dhismato aad fahantay, trend lensku muhiim gaara ma aha trend lensku, laakiin inaad fahantid ayaa rabaa oo wuxuu ka caawin karaa soon meesha suuqa low u hooseeyay ayaad ka bilaabaysaa, saas ayaa u saaraysaa. kan ku xiga oo lowga higher lowga ayaad qabadsiinaysaa, inta kale asaga isa saxahay muhiim ah ya saas camal. kan ayaa saaraysaa, kuwa kale oo dhan ayagu saas isku saxaan ayaa la rabaa. marka qaar xarkiisa inuu madaxa soo kala bax, laakiin inuu sii socday markaas madaxa asoo wax yar soo jiro kor, laakiin muhiimadu waa inaad kan koobaad iyo kan labaad isqabadsiisaa, inta kale asaga is xiga. sidoo kale kanna asagana markuu yahay qeybtan kore ayaa laga saaraa, meesha kasoo bilowda waatan kan ayaa ku xijinaysaa. kan hadaa saartay inta kale waa ka leexanaysa, asaga ayaa la rabaa inuu isu soco. waa kaasa mararka qaar saan camal waaye halkaa marka uu tago handalo uu kugu laabsan maruu madaxa kala bixin oo korkaas camal ayuu tegi karaa, korkaas camal ayuu tegi karaa. mar asuu si fiican soo gaar meelahan camal ayuu kasoo daadan karaa. marka laakiin muhiimadu waa inaad
kan koowaad iyo kan labaad aa isqabsiisa waxa ka dambeeya isaga ayaa isa saxay. bal tusaalayaal aan suuqa uga dhex raadino anagoo labada u fiirinin. suuqa bay u socdo haddii aan fiirino waxaa ujeedaa inuu halkan uu yahay higher high, halkaana uu yahay lower low, lower high, higher low ayuu noqonayaa. halkan wuxuu noqonayaa higher high, halkan wuxuu noqonayaa higher low. ana haddii qoraalkan aan si fiican u saxno, halkan higher high ayay noqonaysaa. 1 minute. halkan waxay noqonaysaa higher high ayay noqonaysaa. halkan hoosena waxay noqonaysaa higher low ayay noqonaysaa. higher low ayay noqonaysaa. halkan aniga fohta waxaan ka gaabiyey, kasoo gaabiyey 4 hourka. marka laakiin daily iyo waxa rabtid adigu markaa aad isticmaalaysid time frame-ka ayay ku xirantahay. marka halkan higher low ayay noqonaysaa. haddana halkan kale waxay noqonaysaa iyaduna kana u koreeya kan waa sababtoo kan ayaa ka hoose. marka halkan waxay noqonaysaa higher high ayay noqonaysaa. halkan haddana waxay noqonaysaa higher low ayay noqonaysaa. higher low ayay noqonaysaa. halkan waxay noqonaysaa higher high kale ayay noqonaysaa. higher high ayay noqonaysaa. halkan waxay noqonaysaa higher low ayay noqonaysaa. higher low ayay noqonaysaa. halkaana higher high kale ayay noqonaysaa. marka inaad sidaas u fahantid ayaan rajeynaya. oo suuqu afternoonka marka uu yahay nidaamkaas ayuu kugu dhismayaa inuu korkaas u tago oo nasiino soo qaato, halkan uu tago, handale korkaan uu tago, handale nasiino soo qaato, handale korkaas uu tago. waa inaan isla fahno. bal suuqa down trendka isla asagana halkan ka fiirin maadaama uu kan uu down trend uu soo noqday. asagana suuqa down trendka sidii bilcagsigeeda ayuu u wahay. haygan oo u sareeyo ayuu ka imaaday. haygan ayuu ka imaaday oo u sareeyay. haygaas u sareeyay ayuu ka imaaday. haygan markuu ka yimid wuxuu samaystay suuqan lower low ayuu samaystay. lower low ayuu samaystay. lower low markuu samaystay nasiina ayuu galay suuqan oo kor ayuu u laabtay. kadib wuxuu halkan uu ka helnay lower high oo wixii hadda farshaxanka ah idinku tusaay lower high. kadibna wuxuu handala sameeyey lower low. lower low markuu sameeyay handala nasiina ayuu suuqan u galay oo intaan ayuu kor u nasiinadan uu qaatay. kadibna wuxuu sameeyey lower high. suuqa down trendka isaguna waa mid sidaan ku dhismo saan idin sheegay. waa mid asaguna dhaqaaqan ayaa soo dhacay, kadib nasiina ayuu qaatay, kadib mid kale ayaa sii dhacay, kadib nasiina ayuu qaatay, kadib mid kale ayaa sii dhacay. saas camal nidaam ah ayuu ku dhismaa suuqa down trendka. ina aad fahantay ayaan rajeynaya. marka trendigu marka uu kala wareegayo marka waxaa jirto waxaa ku garanaysaa dhaqaaqii hadda suuqan uptrend ayuu ahaa sooma. higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. higher low u dambeeyay waa kana kan markii la soo jibiyay aragtay dhaqaaqa inuu kasoo hoos maray ayaad leedahay suuqa jihadiisa waa isbedesho. lower high ayaa halkan ka raadinaya kadib inuu soo sameysmo, kadibna oo sidaas uu down trend ugu socdo. waana sida hadda aad halkan suuqa ka arkaysa markii kan la soo jibiyay suuqu down trend ayuu soo socday. sidoo kale trend line-ka asagana marka waa saaran kartaa oo sidaas aad u saaran kartaa. oo kan koowaad halkan uu ka bilowday ayaa ka bilaabaysa, kan labaad ayaa ku xijinaysa. marka aad saas u saarto kan labaad ku xijiso marka aragtay trend line-ka in la soo jibiyo xaalada jihada waa la soo jibiyay wala uu kan kasii horeeyay uu jibiyay oo kan la soo jibiyay. marka
haddii kan seelka ahna asagana sidoo kale kor ayaad ka saaranaysaa, waas kan labaad isku xijinaysa, waxay ka dambeeya asaga isa saxa soo maarta halkaan ayuu ka bilowday waa kana kadibna mar kale ayo. marka trendy iyo trendline muhiimadooda iyo sida loo isticmaalo ayaguna sidaas waay. waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan trendy iyo trendlines waxa ay yihiin iyo waxay kaliin iyo sida u shaqeeyaan inaad asagana aafahantay. insha Allah inta aan ku kulmayno muuqaalkan iyo mid ka xiga. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.